kahor inta aanu sheegin in uu yahay lagaroone xirtay dhar dumar galanay safaarad carbeed dadka Soomaaliyeed waxa ay ku jahawareersanaayeen waxa uu yahay Maxamed Xuseen Owliyow marka laga arko baraha bulshada iyo warbaahinta isagoo madaxda dawladda iyo madaxda maamul goboleedyada laga adeynaya dadka waxa ay isweydiin jireen Owliyow ma siyaasiba ma suxufiba ma suugaanyahanba ma samafara mise waa suufi qof kasta waa ay ku adkay bixinta jawaabta laakiin isaga warkii soo koobay oo yiri waxaan ahay lagaroone waxaan xirtay dhar dumar waxaan galay safaarad carbeed oo xamar ku taala warbaahinta garqaad waxay idinla wadaagaysaa cod laga duubay Maxamed Xuseen Owliyow waxa uu la hadlayaa dhalinyaro ka soo jeeda deegaanka Xeraale waxa uuna yiri waxa Xeraale weerar ku soo qaaday dad xil iyo xooladoon ah oo ka soo jeeda sida uu hadalka u yiri magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guraceel walaalayaal marka ugu horeysa waxaan la qaybsanayaa oo Ilaahay subhanahu qaadirka uga mahadcelinayaa nimankii xil iyo xooladoonka oo xasuuq rabay inay ku sameeyaan Xeraale oo Ilaahay subhanahu qaadirka oo naga qabto naga badbaadiyay farxadeedu waa in la qaybsanayaa in shakartum la azidannakum wa in kafartum inna adaabi la shadiid لك الحمد والشكر لله الحمد لله الذي أجعلنا إلهي بانو حمدنا غيا إلهي كي إلهي حرارة قحنت كرئيسة كن عليه كواسا قردامدي وذين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين Owliyow oo si hadlay waxa uu ku xadgudbay ragga reer Xeraale oo uu sheegayo inuu ka soo jeedo waxa uu yiri ragga matala Xeraale waa rag wax matarayaal ah haybad cod iyo aqli midna aanu lahayn wuxuuna intaas sii raaciyay in haatan reer Xeraale ay haystaan fursad waxa uu yiri waxaan haysanaa gaadiid dagaal dhalinyarada reer Faqi Maxamed waa ay midaysan yihiin 80% waa inaan isku aragti ka noqonnaa dhinacyada Dhuusamareeb iyo Guraceel waana sharwadayaal waana dhinteen oo waxa dhashay duca qabayaal ka gudbay quursi والرجل مثلا هي أو مثل جري لأنا على الرجبة أي أو هوجي بأهاي وادوكتين من جواب حكدي كراية من لبقف واحد يغسين كراية من هيبة يقعد عقل من اللي هم يجرين قرب النين ما هذا تكنيك على هلاي وح سلت شوجا بقول كي سديت الرفق محمد وسلت شوجا الرحالة وحلا الربامان تبوش الوجود دوية حمد النك اسكو حرنانتا يوحوي وحلا هلنا وحلا جواب الكرم مله وحنا دلنا هاي كر الله من كيالو وحوي وحلا يرحل حاجة لقوم الدكتور إلا كان شروده كان انتو أمد عقبه ونشرو مركب وحن فينا يا شروده لمي وحوي قبي قرصي وحوي كل بعد غدي والله تركي Owliyow waxa markan uu habar ula jeestay hogaamiyaal salsalo oo ka tirsan ahlu sunna wal jamaa kana soo jeeda degmooyinka Dhuusamareeb iyo Guraceel ilaahay waxaan ka baryayaa oo Allah subhanahu wa ta'ala aan ka baryayaa saadiq iyo Sheekh Maxamed Shaakir iyo Sheekh Cabdirasaaq Ashcari calaamad degdeg ah oo dadku ay diintooda ugu badbaado ilaahay inuu ku afiyaan ka ifiyaan ilaahay u baryayaa aniga waxaan kala aqoon waayay in Owliyow uu yahay faataala beenaala ah iyo in madaxa looga jiro maxaa yeelay waxa markan uu yiri waxaan suuq ku yaala Islii aan ku feeray oo aan ku garaacay General Maxamed Nuur Galaal waxa uu ka ban sheegay taariikhda iyo sooyaalka soo jireenka ah ee Soomaaliya waxa uu yiri General Maxamed Nuur Galaal waligi kama guul keenin dagaal uu hogaamiyay wuxuuna carabaaday in haatan Galaal uu qorsheynayo in duulaan uu ku soo qaado deegaanka Xeraale ninka daalimka Galaal in aad kaga hortagtaan agardaamadiisa wali qolo uu raacay oo taariikhda guuleysatay lama arag balambal 1982 asaga dagaalka hogaaminayay saddexda jeer marka la qabsaday ilaa Maxamed Faarax Aydiin loogu yeeray oo isagu kaartada W-ga uga xoreeyay marka la yiraahdo midowgii maxaakiimta 2006 asaga waxa weeye u hayay ciidankii la raba inuu jabo ilaahay wuxuu ku daraa Galaal waa nin aad u bidxun uurkiisii afkiisu islahayn حقرات بدن وساعيبتي سوى الله صبرتي أنت بنتي ميد حتى مركا وحوي مال ما كمدا
markii gaariga uu qaraxa la qabtay dhaga badan ayaa Nairobi ku yimid markaasuu yidhi inuu dhinto ahaa wacalka meeshii isniin baan joogay feer baan saan ugu waday askartii isniin oo dhan baan isku kaytay waa kala urmariid ah inna aan wax u quurin ugu dambayntii Maxamed Xuseen Owliyo oo sheegay in isagoo xirtay dhar dumar uu galay safaarad carbeed ee ku taala Xamar waxa uu leeyahay waxa iga go'an hogaaminta dadka reer Xeraale dhowr jeer oo hore waxa la diiday aragtiyo iyo talooyin aan u soo jeediyay reer Xeraale oo aan doonayay in aan ku hogaamiyo laakiin haatan waxaan diyaar u ahay hogaaminta reer Xeraale ma ogi in reer Xeraale loo xiri doono dhar dumar iyo inay geli doonaan safaaradaha carbeed ma ogi in sida Owliyo reer Xeraale ay dhihi doonaan waxaan ahay laga roone ma ogi in reer Xeraale sida Owliyo oo kale ay dhihi doonaan ragga reer Xeraale oo wax matarayaal haybad aqli